الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faalooyinka ciyaaraha iyo waxyaabaha update-ka ayaan ku soo qaadanaa barnaamijka faalooyinka ciyaaraha maantana qodobo muhiim ah ayaan ku soo qaadan doonaa inta ugu badanna waxaan ku falanqeyn doonaa UEFA Champions League kulamadii la ciyaaray ayaa markaa eegi doonaa iyo kulamada horyaalka wadanka Spain kulan ka tirsan ayaa markaa la ciyaaray ninkii Lionel Messi xalayto guul ayuu gaaray naadiga Barcelona ayaa naadiga Ajax markaa ka badisay 3-0 ayayna kaga badisay Lionel Messi ayaa dhaliyay 2 jeer oo markaa 2 gool wuxuuna noqday gool dhaliyaha ugu sareeya La Liga Barcelona ayaa markaa la sheegay farqiga u dhaxeeya hogaamiyaasha La Liga Atletico Madrid soo yareysay 5 dhibcood iyadoo qaybta labaad Lionel Messi uu ka caawiyay inay 3 kaga badiyaan naadiga kulamadii la ciyaaray UEFA Champions League waxyaabihii laga soo calaamadiyay ayaan eegi doonaa oo kulamadii xalayto la ciyaaray kamida naadiga Atlanta ee naadiga Real Madrid ayaa markaa guul ka gaartay Real ayaana gool eber ku badisay waxaana goolka markaa ka saaciday ninka lagu magacaabo Mendy 85 daqiiqo ayuuna markaa ka caawiyay Los Blancos ayaa markaa garaacday ayaa leeyahay kooxda ka soo horjeeday ee lagu magacaabo Atlanta Serie wadanka Talyaanigana markaa ka socotay Mendy ayaa ka badbaadiyay qaladkii Real Madrid kadib markii uu ka dhaliyay xilli dambe oo ay ka hor yimaadeen 10 nin oo naadiga Atlanta oo markaa nin rooso uu ka qaatay ciyaaryahan ka tirsan naadiga Atlanta ayaa markaa qaatay dhanka kale haddii aan fiirino kulanka naadiga lagu magacaabo Galatasaray naadiga Manchester City ninka lagu magacaabo Bernardo Silva ayaa markaa u fududeeyay ayaa leeyahay naadiga lagu magacaabo Manchester City guul inay ka gaarto naadiga Jarmalka ka socota markaa Galatasaray Tottenham Hotspur haddii aan fiirino kulan ka tirsan UEFA Europa League ayay markaa ciyaareysay ayna 4-0 markaa ku qaraacday naadiga lagu magacaabo Wolfsburg ayay markaa ku qaraacday waxaa leeyahay Dani Ali ayaa dhaliyay laad cajiib ahaa iyadoo Tottenham ay ku soo baxday Europa League 16 kulan ugu dambeysay 8-1 ay kaga badiyeen kooxda lagu magacaabo Wolfsburg ayay markaa kaga badiyeen Manchester City haddii aan fiirino iyo naadiga Real Madrid ayaa tallaabo u qaaday wareegga quarter finalka UEFA Champions League Manchester City ayaa laga dhalin wax gool ah 616 daqiiqo ayaa leeyahay kubadda cagta Champions League iyadoo 6 jeer oo isku xigta oo nadiif ah markaa ay badinayso Real Madrid ayaa hadda dhalisay 21 kulan ugu dambeysay wareegga isreebka UEFA Champions League gool ayaa markaa la leeyahay Real Madrid waa kooxdii ugu horeysay taariikhda ciyaaraysa 100 kulan ee Champions League ayay markaa xalayto kulankii ciyaartu u ahaa Messi ayaa UEFA Champions League ka dhaliyay 13 gool Roberto Lewandowski 12 gool ayuu leeyahay Haaland wuxuu leeyahay 10 Lionel Messi ayaa dhaliyay goolal badan tartamada oo dhan marka loo eego ciyaartoy kasta oo ka ciyaara 5 horyaal ee ugu sareysa Yurub ayaa leeyahay sanadka 2021 gool dhaliyaha ugu sareeya La Ligahana waa Lionel Messi goolal badan tartamada oo dhan marka loo eego qof kasta oo kamida 5 horyaal ee ugu sareysa ciyaaryahan kasta oo ka ciyaara ayuu markaa ka wanaagsan yahay hayeeshee waxaa leeyahay markaa mucjiso ayuu markaa ka dhigayaa waxaana loo soo jeedinayaa dhanka kale dayaaceen ah inuu Lionel Messi xilli ciyaareed markaa aad u xun oo ku jiro Toni Kroos ayaa shalay markaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee markaa duubta ugu yaraan 150 taabasho ciyaar ka tirsan UEFA Champions League tan iyo ninka lagu magacaabo Alexander Arnold oo markaa duubtay 166 Maarso ayaa markaa leeyahay 2020 Gabriel Jesus ayaa dhaliyay 16 gool 27 kulan UEFA Champions League waxaana markaa sidaasi ku noqday ninka markaa ugu mucjisada badan ayaa la leeyahay naadiga Manchester City ayuuna markaa taariikh markaa ka galaya kooxda kaliya ee La Liga ee ku guuleysatay Champions League 16 lugood ee ugu dambeysay waa naadiyaasha markaa Barcelona Sevilla naadiga lagu magacaabo Sevilla Atletico Madrid Real Madrid ayaa markaa la leeyahay Manchester City ayaa dhalisay 49 gool 16 kulan ee ciyaareen waxaana laga dhaliyay ayaa leeyahay kaliya 6 gool Jose Mourinho ayaa u arka ayaa leeyahay mid kamida kooxdiisa uu ka dhaliyay markaa ugu yaraan 8 gool wareega ugu horeeya 16 ayaa leeyahay markaa Europa League markii ugu horeysay tan iyo maalmihiisii Real Madrid oo markaa kooxda Spain uu leelinayay
naadiga lagu magacaabo Abel Nugesia ayaa markaa uu kaga badiyay 8-2 ayaa markaa la leeyahay quarter finalka UEFA Champions League 2011 dhammaan saddexda kooxood ee Ingiriiska Chelsea, Liverpool iyo Manchester City ayaa ku guuleystay lugtooda koowaad ee Champions League 16 kulan ee ugu dambeysay ee garoonkooda markaa ku ciyaaranaya le taariikhda Europe League UEFA Champions League taariikhda ma jiro koox Ingiriis ah oo weligeed laga ciribtiray ayaa la leeyahay wareega 16 kadib markii ay ku guuleysteen lugtii hore kooxda martida oo markaa loo yahay ayaa guuleysatay 7 kamida 8 kulan ee lugta hore wareega 16 xilli ciyaareedkan waana rigoor heer sare ah marka tan iyo markii la soo saaray 2003-2004 ayaa markaa la leeyahay dhanka kale haddii aan fiirino naadiga Manchester City waxay haysataa 24 ayaa markaa la leeyahay oo nadiifa tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan Manchester City ayaa guuleysatay kulamadoodii 12aad ayaa markaa leeyahay isku xigta oo ay marti yihiin tartamada oo dhan iyadoo jibisay rikoorkii u yiri marka kooxaha Ingiriiska ay horay u dajisay Manchester City bishii November 2017 ayaa markaa la leeyahay waxyaabahaas ayaa markaa laga soo calaamadeeyay Pep Guardiola aad buu markaa u faanaya haddii aan fiirino naadiyaasha uu soo baxay waxaan 8 kooxood waxaa kamid ah Liverpool, PSG, Borussia Dortmund, Porto, Bayern Munich, Chelsea iyo Manchester City inaadiga Real Madrid ayaa gabi ahaanba markaa u soo baxay UEFA Champions League Zidane wuxuu leeyahay waa ciyaaryahan aad u fiican booska oo markaa isticmaalo ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo Isco waana kubadiisa cagta aad bay u wanaagsan tahay ayuu markaa leeyahay guudaan barnaamijka faalooyinka intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa nabadgelyo